بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa sharaf noo ah anagu ah maamulka degmada muqdisho inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed tallaabooyin muhiim ah oo aan qaadnay kuna saabsan horumarinta iyo casriyeynta degmada muqdisho. taas oo muujinaysa siday nooga go'an tahay kor u qaadista adeega dadegelinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha dalka. sida aan wada ogsoonahay degmada muqdisho waa laf-dhabarka ganacsiga Soomaaliyeed. sanadihii u dambeeyey ganacsatada Soomaaliyeed waxay kordhiyeen ganacsigooda taas oo ay tahay in ay amniga magaalada muqdisho iyo wadankaba uu soo ficnaanayay ayna keentay in ay maraakiib fara badan wadanka yimaadaan. taas awgeed waxaan go'aansanay inaan tayeyno casriyeyno degmada muqdisho. dhammaadkii sanadka hore waxaan bilownay barnaamijyo aan ku ballaarinayno kuna casriyeynayno degmada muqdisho si ganacsadeena ay u bilaabaan in ay ganacsigooda soo kordhay degdeg ay ugula baxaan degmada muqdisho. tan keliya ma aha barnaamij dhismo iyo qalab, laakiin waa mid lagu jaheynayo habka shaqada ee degmada muqdisho si dhaqso ah ama loogu fududeeyo shaqada ay u baahan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed. waxyaabaha aan soo kordhinay waxaa ka mid ahayd in aan sanadka hore bilownay inaan sameyno dhismo cusub oo xafiisyada degmada, maamulka iyo bangiyada iyo wasaaradaha kale ee dowladda aan ugu sameyno xafiisyo cusub. taas aan ugu dan leenahay in ganacsatada iyo dadka u shaqo tagaa degmada ay helaan meel casriyeysan howlahoodana si degdeg ah loogu sameeyo. waxyaabaha kale oo aan sameynay waxay tahay baaritaano aan sameynay si ay dadka ugu fududaato. waxaan ogaanay in loo baahan yahay in degmada meesha laga soo galo ama iridda ay yar tahay. waxaan kaloo ogaanay in parkinka ama meesha la dhigo baabuurta ay yar tahay. waxaan kaloo ogaanay in konteenarada degmada yaallo ay ciriiri ay u yaalaan oo loo baahan yahay meel weyn. taas awgeed waxaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala in maalmaha soo socdo muddo kooban aan ku bilaaban doono barnaamijka cusub oo dhismaha ah oo aan rabno in lagu sameeyo meel ama irid laga soo galayo degmada. in aan dhismo ka sameyn doono dhanka galbeedka ee degmada oo ay ku aali jirtay xafiisyada hore ee Soomaaliya Fudud. waxaan ugu dan leenahay barnaamijka la sameeyey injineerada sameeyeen waxa weeye in la sameeyo laba wado oo ay kusoo galaan baabuurta iyo laba wado ay ka baxaan iyo meel weyn parking ah oo baabuurta la dhigin karo. konteenarada hadda mataqaana buux dhaafid kadana la dhigi doono. taa waxay keeni doontaa in degmada ay nafisto, in mataqaana maraakiib badan la keeno, in shaqadana ay sahlanaato. marka insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa mar dhow inaan bilaabi doono.